bismillah. waxaan xagan arday kastoo rabana ku tusi doonaa qaabka uu eeganayo exam ama imtixaanka. waxaan galayaa applicationka la yiraahdo Google Chrome ama Chrome-ka markaan galo waxaan searching garaynayaa xagga sare ku qorayaa magaca iskuulka OPK school.org. intaa markaan qoro kadib waan searching garaynayaa waxay soo bixi doona markaa iskuulka website-kii dugsiga markuu ii soo baxo waxaan samayni waxaan kala adaa baari doona button-kaaba waxaan samayn button-ka xaggaa kaaga muuqda OPK iskuulka button-ka geerka kaga yaala ee waxaad ka tegi doontaa result xagga kaga qoran tahay result-gaasaan tegi doonaa. result-ga markaan tago waxaan samaynayaa inaan galo waxaan isku dayi doonaa arday ID-giisa inaan ku gali karo iyo password-kiisa inaan gali karo. ID-ga xagga sare aan gelino oo username-ka waxa la gelinayo waa ID. username-ka waxa la gelinayo waa ID weeyaan. ID-ga haddaba soo gelino OB-du waa waaweyn -2 minus taa dhexda 20 minus taa dhexda 772 weeyaan. waa arday form 1 aan filayaa waxaan gelino password-kiisa khaldan minus 20 minus taa dhexda 773 markaan gelino password-kiisa aan gelino markaan gelino just login baan markaan login garayno waxa dhacday waxa inoo soo galay ardayda la yiraahdo Shimhaan Cabdi Maxamuud Cali waaye ardaydan welcome to the dashboard kasoo dhawow account-kaaga. waxaan sameynaynaa markaa qaabkaad u eegan lahayd examka waxaad u eegan kartaa waxaad tegi button-ka xaggaa ku yaala OPK ay ku qoran tahay ayaa tegi. button-kaas wuxuu ku sameynayaa form 1 form 2 form 3 form 4 form 1 markaa tahay baad form 1 meesha ay ku qoran tahay tegi markaa si aad u eegato theorem-ka labada theorem ee imtixaanka theorem-ka weyn iyo theorem-ka yar ee nagu soo socday iminka ee bisha 12 la geli doono kaasaan xaggaa baad eegani markaa theorem 1 baad ku dhufan waxaa kusoo bixi doona form sidana theorem 1 result oo theorem 1 baan ku jirnaa page-ka theorem 1 subject-gii weeyaan oo maado kasta waxay ku hoos gali doontaa xaggaasay ku hoos gali doontaa. marks-kana waxa ku hoos gali doona maado kasta iyo number-kee aad ka keentay maado kasta iyo markskii maadada ayaa ku hoos gali doona. totalka guudna xaggaasaad ka arki doontaa totalkaaga guud wuxuu noqonayo xaggaasaad ka arki doontaa. waxaan isla eegna haddaba inaad password-kaaga bedelan karto password-kaaga si aan u bedelno xaggan ila soo eeg xaggan waxaa kugu qoran setting-ka markaad tagto change your password xaggan kugu qoran change your password ku dhufo waxaan bedelna markaa password-ka qofkan uu isticmaalayo. password-kii horead gelinaysaa xagga sare password-kii hore markaad geliso laba jeer waxaad gelinaysaa password-ka cusub update baad odhani markaad password-ka cusub laba jeer geliso update baad odhan. update markaad tiraahdo muxuu yidhi your password successful updated macnaha waan update garaynay uu ka baxay. si aan usoo gelino password-keena dambe ee imika si aan usoo gelino username muxuu ahaa oo waaweyn
b-duna ha waaweynaato minus 20 773 buu ahaa. baasweedkan iminka gelina baasweedkan marka u samayno markaa baasweedkii aan u samaynay marka waxa ismahaan kaa soo dhex galay oo loginkii ay dib bay ugu soo noqotay haday ka login ganayn lahayd. waxaad samayn kartaa isna inaad markaad settingkaa tegi inaad change profilekaaga inaad bedeli kartaa samayn. profilekaaga markaad bedesho waxaad ku dhufani change your profile baad ku dhufan change your profilekaaga browserkaad kasoo dhex qaadana ama meesha kuu dhex yaalo browserka hadduuna kuu dhex oolin waxaad samayni librarygaaga tegiyo sawirnaanta kaasoo soo qaadan. haddii kale waad iska qaadi kamarada ayaad iskaga qaadi doontaa. marka waxaad samayni isagana intaasu ku dhan yahay. inaad fahanteen baan filayaa cashirka dhammaantiin. markaa xaggaas saasuu noogu joogi doonaa insha allah saasuu noogu joogi doonaa. imtixaankana saasaad u eegan doontaan. arday kastana qaabkaan u galay ha u galo oo ha u isticmaalo. wabillahi tawfiiq.